taliyaha qaybta booliiska hay'adda ama NGO-ga UNITA iyo dhammaan bahda booliiska iyo bahweynta kale haweenka ka qayb gashay seminaarkan qiimaha leh aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii way farxad gelinaysaa in haweenku waa mucda ama waa bayska nabadgelyada ummadda, laakiin dadkeena afrikaanka aad uma naqaano mana qiimayno. haweenku waxay yihiin waa tarbiyadda ilmaha guriga hooyga. marka hore horta kugu wareegsan yihiin waa hooyo, waa hablihii, waa tii ku dhaxday. waxa weeyaan ragga way ku wareegsan yihiin laakiin dareen badan lama siiyo. hooyadu sida ay tarbiyadda uga soo abuurayso marka uu ilmuhu dhasho ee inanta leedahay dhiidhiibso, inanka leedahay waxaa lama cuno, ma cadayatay, seexo, maydho, ayuunbay ahayd inaynu nabadgelyadana ku darnown. tarbiyadda qayb ka mida weeye nabadgelyaduna. ee jira hooyo waa xaaraan inaad dadka shiido, guryaha shiido. hooyo waxaa xaaraana inaad saaxiibada ama iskuulka fadqalla ka samayso. hooyo waxaa xaaraana inaad qayb ka mida ku darto. in badan way ku dartaa laakiin waxay bays u tihiin nabadgelyada. waanan ku faraxsanahay in seminaarkan 35 dumar ah ay hay'addan idin qabato. waxaanan filayaa oo waliba iyagana ka codsanayaa inay dhaadhiciyaan oo 35 ka maahay xaafadaha, marka dambana gobolka oo dhan burco inaan lagu koobinay, degmooyinkana ay tagaan. waan ka codsanayaa hay'adda. kole ballanqaadna wuu jiraa, horena waan wada hadalnay, imikana waan wada hadalnay. idinkana waxaan idinku gubaaminayaa 35 naas waxaa samayn kartaan mid waliba saaxiib iyo ehel iyo asxaab bay leedahay, ama waxay leedahay dee familigoo kaliya ka bilaabaysa, ilmaheed iyo inanteeda ka bilaabaysa. meelihii aanu ka nimay Yurub waxa weeyaan haddii imika qof wax sameey community-ga booliiska bacidi, marka wax adagunba booliiska loo yeedhaa, community-ga qofka qabta. waliba dadka ugu badan ee wax sheega ama wax qabta ama soo tabiya oo dumarka weey, waxay nabadgelyada ku helaan dadka inaga cadad dibadaha jooga. waxa laga yaabaa imika nin la eriyanayo booliisku eriyanayo ama tuuga ama wax dilay, haddii aniga iyo qof dumar aan wada soconno, aniga ismahan haddaan wada soconno iga hor yimaado, anuu inaanan dhaadin baa laga yaabaa. dharka kalarkiisu xidhan yahay wuxuu yahay, laakiin nin ordayo ay dhaafay. laakiin dumarku waa very attractive, waa very intelligent. waa ilaahay wuxuu ku abuuray. waxay odhanaysaa marka la weydiiyo, waxay odhanaysaa haa surwaal madowna wuu xidhnaa, shaar cadna wuu xidhnaa. qofka dumar way sheegi karaysa, laakiin raggu inaanay uba fiirsan baa laga yaabaa. had iyo jeer marka intelligence-ka way u badan yihiinba. marka laakiin inagu kama faa'iidaysano, dumarkeena lagama faa'iidaysto. oo waxa weeyaan dee xuquuqday lahaayeenba imikuun baabad moodaa inay soo baxayso. xaq fara badan baa ilaahay siiyo, kitaabkuna siiyey dumarka oo ka badan ka ragga. laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa dib u dhac inuu jiray. laakiin idinka laftiinuna roolkiina inay qaadataan xaggii jandarka, oo sidaa seminaarada kelidiina u qaadanaysaan, sida roolka ka qaadanaysaan nabadgelyada, ka qaadanaysaan xagga xukuumadda, ka qaadanaysaan dhinac kastaba. xaq baa u leedin, xuquuqna waa ku leedin, qarankan baan ku leedin. in laydin waliba sanadkan soo socdo kolley ballanqaadyana way jiraan oo xagga ama siyaasad ha noqoto, ama baarlamaan ha noqoto, ama guurta ha noqoto, ina xaqiina ka heshaan oo koota laydin siiyo. madaxweynuhuna wuu ballan qaaday, Axmed Maxamuud Siiraanyo. insha Allah waxaan filaynaa marka soo fadhiisataan meelaha wax lagu kala gooyo sida legislative-ku kale ama sharci dejinta kale, ina ka mid noqon doontaan qarankan. waa dawladdii ugu haweenka badnayd, hadday tahay golo wasiir iyo hadday tahay shaqaalo hoosaba. aad iyo aad baa imika rool fiican ku leedin dawladdan. marka waxaan idinku baraarujinayaa idinkiiyo annagaba gobolkan nabadgelyadiisa inaynu ka wada shaqayno. waa gobol xasaasi ah, waxaanaynu ku jirnaa waqti kala guur. waa sanadkii ugu dambeeyey, doorashooyin baa fooda inagu soo haya 2017. ina lama jecla oo hareeraheena iyo lama jecla in one man one vote ama doorasho inoo dhacdo. waxaa laga yaabaa in xaquleyna la geliyo inaynu macnii ictiraafkeena iyo processkan aynu ku jirno dad badan ma raalli ka ahayn. marka waxaan idinku dardaarayaa nabadgelyadu waa saldhigga nolosha. nabadgelyadu haddaanay nabadgelyo jirin wax kaloo jiraya ma jiro.
in aad badisaan oo qof walba qofka waxa aad baratay u tabi qoyskaaga ka bilow saaxiibadaha ka bilow saasuu ku faafayaa casharada aad ka qaadateen meesha inaanaydun haysanen laakiin inaa dadka kalena u tabisaan insha allah biidni illah aad iyo aad baan idin salaamayaa